وأنا نمد ضدك أهل كنا مسلمين تا إن نكون آيات كلاهي أنه استعمالنا كلام رب العالمين كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إلهي ومدو صوت دريو إلهي خير سوي أنا مقرسة ومدي دو قرقاريو مقرسة ومدي تواصل إذا شيدا كنا مقرسة وعدي جوها وحوي أنينو قرقاريو دانو أهديات بان مقرسة وواجب علماء صارن إن كهدلان وحكوسو كرنا ومضى قرآن أخرنتو آد بويرتاي بويرتاي قرآن أخرنتو هذا الكيس كله يا شيكة دتك تشينكو وكان ليه ولا شيكة سني وحويدين أيه أي آد وقبضان قرآن أخرنتو هذه سنة بويا كلها غيره ودنا ويدقين تضحي بين كورنا إنا ما يقول شيء هذه سنة إنا كي تضبط يقول شيء حدادا لكن كرنا سمعنا درحي بقول كيف تضبط بعد وغيره وهو إنا نحن بقول كيف بقول سجع ميل كروكعي ولي بقول كيف تضبط ما غير سمعنا لنا تاسي هذا لا يعنينا من خصيص معها مد أكتر يد قيمة كلنا معها أما غير سمعنا لنا هاو أما تشينا كإيمو أما حبشي أهاو أما مريكان أهاو أما غير يوروبا هاو حالي ayaa waxa laga soo ay lambarada qarsoon la yiraahdo no numberka ninba hal la yiraahdo wuxuu leeyahay waa waqti dambe wuxuu leeyahay waa lagu xukumay sheeqeena waa lagu xukumay dil baan lagu xukumay bulay ma ahayn anigu meedi ka dhageystay ma yaa waxa xukumay baan ku yeeray markaasuu sheekh barbaraawi waa ku xukumay qofka oo hore ku dilayaan afar la tisca gudahood isaga tag barbaraawi oo dil baad ayaad ugu xukuntay waxaan leeyahay arrinkaasi waa arrin aan sal iyo raad toona aan lahayn ama shayaadiin jinka kamida baa la hadashay ama shayaadiin insiga kamida oo isaga markaa ku ciyaaraysa baa la hadashay ama waa been abuur qodob dawlad la'aan oo ammaan la'aan oo fooda kuma soconayo xagga dawladda xagga qabaligana waxa weeyaan dee uu ku soconayaa garab uu ku haystaa garabkiisaas waxa weeyaan ku barbar jooga wabilayna maankay kumay soo dhicin kumanaan fikirin qof muslima inaan anigu waxa weeyaan aan dilo ninka inankii aan abtiga ahaa yidhi maaha Soomaaliland darba maaha ee caruurtiisu ahay ee xaasaskiisu ahaayeen ee hooyadii ahay ee abtiyaashiyihiin ninka yidhi Soomaaliland darba maaha dee waxay ila tahay abaalka uu leeyahay ilaa annaga oo abtiyaashii ahoo ahe abaalka uu leeyahay waanu garanayna laakiin arrinkaasi ku saabsan inaan anigu iri la garan maayo nasabkiisa waa been cad ilaahay baan subxaana wa tacaala uga bari noqonaya haddaanu ka toobad keenin ilaahay baa subxaana wa tacaala yowma alqiyaama weydiin doona dadka muslimiintaana waxaan leeyahay daawada oo dhegaysta aniga hadalkaygii haddaad ku aragtaan aniga baadil ku socda haddaydan ku aragna wadaadkaasi been cad inuu u badheerayo ayaa idin caddaa doonta isagana waxaan leeyahay ilaahay ka baq subxaana wa tacaala culimadan reer Somaliland ay hadlaysaa amba gaar ahaan caasimadda Hargeysa culimada ka hadlaysaana waa rag cilaajiye leh oo marka cilaajyadoodii ay xidhmeen doonayo wadaadkan meesha in laga qabto si cilaajyadoodii dib ay markaa business iyo tijaarada ay ku jireen u dib ugu soo noqdo waa arrin iska cad weey umalihi cilaaj weligiina cilaaj kama shaqeyn weligiina wallahi inaanan qaadan oonan cunin shilin aan ka qaatay qof xanuunsanayo oo waxa weeyaan quraan aan ku tufay niman baa jiray magaalada la yiraahdo Karabayt ama magaalo cad dadka jir raacinay wali miyaad maqashay sheekh ka hadlay meel walba way joogaan dad wax cilaajiya qaar si sax u cilaajiyana waa jira qaar si khaldan u cilaajiyana waa jira kuwa si khaldan u cilaajiya anagu dadka waanu kala hadalnaa magaalooyin kale kuwa joogay baa jiray magaalo cad qaar baa joogay oo ka soo baxay meel kale qaar baa ka soo baxay dhamaantood basaanu isaga uga hadlaynaa uga hadalay dadkana waan uga dignay wadaadka la weydiyo la yiraahdo barbaraawi waxaan uu sheegay iyo sirtan hadalkiisa ku jirta ee culimada kale aanay sheegin waa maxay maxaad isaga u bartilmaameedsanaysaa warankiisu ma warmaha kuwa kale ayuu ka kurul yahay ma waxaad leedahay isagaa bilaabay oo dadkiiba ugu soo jeediyey waa inkaar qabe bal sababta aad si gaara wadaadkan miskiinka dhalinyarta aad u bartilmaameedsanayso rag baa intuu yidhi iyo in ka badan ba yidhiye bal dadka u caddeeya baan leeyahay